gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer ayaa dowladda hoose magaalada Burco waxa uu ku dhaliilay wax qabad la'aan uu sheegay inay ka muujisay xabaalo ku yaala magaalada Burco gudaheeda kuwaas oo gudoomiyuhu sheegay inay sii fidayaan una baahan yihiin dayactir iyo wax ka qabasho wariyaha Burco nooga soo hadla Maxamed Saciid Gaaxnuug ayaa warkaasi waxa uu ka soo diray Burco gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer mudane Xuseen Kaahin Xayd ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa kaga hadlay xabaalo uu sheegay in ay ku sii fidayaan wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Burco oo kuwaas ku dhex yaala magaalada Burco isla markaasina dowladda hoose magaalada Burco aanay ilaa hadda wax tallaabo ka qaadin xabaalahaasi gudoomiyaha xisbiga wadaniga Xuseen Kaahin Xayd oo ka hadlaya amuurtaasi ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan doonayaa halkan in saaka kaga hadlo xabaalo magaalada ku yaala oo aad iyo aad u dayacan xabaalahaas oo ay magaaladii dhinac walba ka dhaaftay xabaalahaas waxay ku yaalaan halkan seelada barigeeda ay ku yaalaan ama halkan xafiiskan ay ku jiri jirtay hay'adda NRC ay ku ag yaalaan xabaalahaas aad iyo aad ay u dayacan yihiin wax qabadkooda iyo hagaajintooda iyo wax ka qabashadoodana waxa mas'uul ka ahaa oo de mas'uuliyadda gobolka ama degmada hayay dowladda hoose ee Burco way ku fashilmeen wax ka qabadkii xabaalaha noocaas oo kale magaalada bartankeeda eelku hayeenka ku yaala in ay deer yar mariyaan ama deer ay mariyaan ayay ahayd laakiin kuwaas oo qura maaha xabaalo fara badan ayaa jira oo magaalada hareeraheeda ku yaala kuwa laakiin soo ay ku hayeen qofka seelada ka yimaada uu sii maraa qofka ka soo ka yimaada uu sii maraa cid walba inay ku dhacaysaa xabaalahaas wadooyinkii bay ku fideen dad wax ma garanta oo ilmahooda yareer ama ilmaha yar saqiirka dhinta kuwaas ayaa jira marka waxaan leeyahay war dowladda hoose ee wax ka qaban lahayd hadii ay ku fashilantay wax ka qabadkooda mar walbana ay marayso mar walbana ay aragto dadweynaha reer Burco iyo waliba dadka deriska ah ee agdegan waxaan leeyahay dadka muxsiniinta ah wax soo dhaqaysta xabaalahaasi ay si degdeg ah wax uga qabano waayo dambi ayaa loogu soo dad walba ku jira tuug baa gashay xoolaha ku xaaran wax ma garata gashay marka waxa dulmi aad iyo aad ayay ugu hayaan waxaan leeyahay dadka deriska la xabaalaha inay si degdeg ah ugu kacaan wax ka qabtaan hadii ay dowladda hoose wax ka qaban kari weyday ama ay arki weydo indha kala lisay iyagoo qorana ma xabaalo fara badan oo meelo badan magaalada ku yaala ayaa jira kuwa tabarba kamid ah kuwa dowladda xajba kamid ah geesta kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay guryo bileysku lahaa oo dowladda hoose iibisay taasoo dadkii ku jiray lagula kacay tacadiyo waa sida uu hadalka u dhigay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa kaloo iyadoo jirta dad ayaamahanba cabasho loogu yimaanayay xafiiska loogu yimaanayay oo lahaa guriyihii aan ku jiray aan deganay ayaana laga saaray dowladda hoose ayaa naga saartay qaarkeena way xidhan yihiin qaarka iyagana iska taga baa lagu yiri guriyihii bileyskan uu deganaan jiray berigii hore bileysku lahaan jiray guriyihiina dowladda hoose ayaa naga yeeray oo naga qaaday waxay nasisay meelayna dejisay toona ma jirto waxaan leeyahay dowladda hoose war dadka dee in la daadiya oo meel lagu daadiya ma haboona qof waliba xaq buu leeyahay dadka way cadaalad sameeya kuwa guriyaha hadda ay ku iibiseen oo wax kale ka wanaagsan dowladda wadayna ugu bedeshaan dee kuwana xaq lahaa iyagana meel dejiyo meel ku sugnaada oo meel ku suga laakiin ma aha in loo hanjabo oo qaarna xadhig la geeyo qaarna la yiraahdo iska taga waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dowladda hoose iyo golaha deegaankaba inay arrimahaasi indhan xariista ku eegaan oo ay bal hadii ilaahay ka dhigo sida ugu dhaqsiya badan ay wax ugu qabtaan war waxaan leeyahay nimadii yaryaraay shalayta la doortay dhalinyarada ahayo waqtigiina wali uu cusub yahay umadiina hoos eega mid walba meesha ka soo toosay iyo xaafadda ka soo toosay iyo halka uu degan yahay ha eega cabashada iyo waxa joogana ha la isu kala dibadna markaasi isku mid ah wax uga qabta qofku wax ku sheegay wax ka dhiman qof ku sheegay laakiin si waxa laga yaabaa qaarkiin inay u qaataan ba dacwad noqonaysa laakiin wax ka maaro qof ku sheegay Maxamed Saciid Gaaxnuug telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Burco.